waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya inay mar kale hareeyaan eedan la mid ah kuwii hareeyay doorashooyinkii ka horreeyay ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay waddanka. Eedahaasi oo ahaa musuqmaasuq, codibsasho iyo cabsigelin. tusaale ahaan doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrihii xilligaasi waxa uu VOA u sheegay in lacago badan lagu bixiyey, lacagahaasi oo cod lagu iibsanayay. Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayay codadka $5,000 ilaa $30,000. waa doorashadii dhacday 2016-2017. Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor. horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya. waxa kaloo meesha yaala waxa weeye oo lagu aad loogu tartamo waxa weeye in gudoomiyaha baarlamaanka la soo saaro, in ra'iisul wasaare la soo saaro, in madaxweyne la soo saaro. marka maxay muhiim u tahay? waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddexda isteega ugu sareeya mid yeesha ama laba yeesha. inkastoo ay hay'ado kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikradda Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado, haddana ilaa haatan lama hayo caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo la isdhaafsanayo. aynu ka hadalla marka doorashada gudaha tii 2016-2017 horaanteedii waynu aragnay, tanna hadda waynu u jeednaa. maxaa musuqmaasuqa dhici kara marka tan la eego, markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto? waxaa la yidhi ergooyinka waxa soo xulaya odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaan ku yiraahdaa maamul goboleedyada intaasoo iskaashanaya. 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii. bal ka hadal arrintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaas. arrinta cabsida ugu weyn ee ugu jirta waxa weeye schedule sax in la keeni waayo, in maxaa la yiraahdaa transparency waxa afka qalaad lagu yiraahdo ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartami weyso, meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo, lagu kala bixi waayo. haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad hal isku doorto oo gacantaaga la isku doorto, waxa weeye halku soo dhawaanaya. siyaasadda marka Soomaaliya waxa ka maqan hoos u daadejintii in heer maamul goboleed loo daadajiyo, wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin. gabdhaha ayaa taagan, daahfurnaantii waa maqan, isla xisaabtankiina waa maqan yahay. daahfurnaanta aan sheegayana waxa weeye in schedule sax la qoro, in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro, in shuruudaha la qoro, in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka qofka tartamaha lacagta laga shubaya meesha ku dhacayso iyo sida ay ku baxayso iyo sida lagu celin karo inay caddahay. guddiga xalinta khilaafaadka waa in processkiisu cad yahay, yaa u ah marjac, yaa u ah guddiga khilaafaadka, qaabkee ku kala saaraya qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jira. hadduuna jirin waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro, halkaasna ay daahfurnaantii ka maqnaato. isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya, yay u yihiin accountable, ayaga laftooda yay u yihiin. shuruucda ay wax ku kala saarayaan shuruuc qoran oo websaydyada Soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin. haddii aan isla xisaabta sax una jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka, yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka, haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin, nin toosan ugu dhacaya. fikrad la mid ah tan Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxaa qaba Maxamuud Axmed Maxamuud Kulalihi oo kursigiisa uu ka mid ahaa 6 kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Kulalihi waxa uu waayay doorashadaasi waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluus bixiyo. waa igu wallaahi, waa igu billaahi, waa igu tallaahi kitaab gacantaan saaranaya 16 sano aan xildhibaanka ahaa $1 oo laaluusha ma bixin. intaan meesha joogo oo madaxweyneyaal isu sharaxayeenna oo lacagtay bixinayeenna $1 kama qaadan. doorashadii u dambeysay 2016 adu wax maad bixin sidaad ii sheegtay,
laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacag keen ma lagu yidhi ma lagu hadlaya mas-uul weydiiyey adaa liigu dheelay oday oo intaasa xildhibaan aheede weligaa shilin kaama adkiishaana kaama cadinayn haddaad jeebka ka hado doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso waa kasii darantaa waxaa waaye university waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka waxaa jirta university oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman asagoo raba inay madax noqdaan ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga waxaa ku jira wadamadii carabta aheed marka waa kasii xoog badan tahay waana kasii darantaa laakiin avantaajada leedahay sanadkan maxaa waaye markii hore waxay ahayd garoowe hadda boosaasaa laga dhigay marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aado laakiin doorashadan waa kasii darnaanaysa waana kasii xumaanaysa maamul goboleedyadii oo kuleelka uu taabtay dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay nin walba kursigii waxaa la ogyahay shiir iyo caradihii kulligaa ku wadi jira xildhibaan cabdi maxamuud maxamed cabdiyare oo isagu ku guulaystay kursigii xildhibaan maxamuud kulolihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq ku lahayn kursiga horta jeebka lagagama qaadin kursigani keligiis igulama u tartamaynin waxa igula tartamayey aniga iyo 3 nin oo kale oo isagu kamid ahaa waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan ku leeyahay kursigaa waa layga adkaaday ma aanay jirin oo anagu laftigiyagu lacag ma aanan bixinayn dabcan hadduu u yaqaano laaluushka ama lacag bixinta facilitiga kursiga markaad doonayso kugu baxaya lacag way ku baxaysaa laakiin wax kaasho aan lacag oo aan kala qaadanay ma aanan jirin kursiga markaad doonayso dadkaa ka doonayso waad shukaansanaysaa waa la kulmaysaa qadooyin baad ballaminaysaa xafladaad ballaminaysaa meediis xaafad baa ballaminaysaa lacag baa ku baxaya qofka aad u baahan tahay waad la qadeynaysaa waad la casheynaysaa waad la quraacanaysaa waad la kafeeyanaysaa dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan waa lacag marka kursiga lacag way ku baxdaa siyaabo kala duwan bayna ugu baxdaa laakiin macnaheedu ma ahan intaasii kala qaadanayay xilligaa ay ahayd saaxiibkii haddaanu dee taas uu ka wado laaluush baa la kala qaatay taasi laaluush maahan baan anigu malaynayaa ama filaya ama saasay tahay marka saasaan uga jawaabayaa ma ahan wax lacaga inaan bixinay ma kula tahay doorashada soo socda inay musuq maasuq xor ka noqon doonto adigu ma u taaganta kursigaa aad baad u mahadsan tahay haddaan ku noqdo tii hore horta si dib ugu noqdo aniga kursigeygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay waxaan ku cadaynaya waa laysoo celiyey oo si corruptional laysoo celiyey oo khaldan haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwo aan ergadeydii ahayn ayaa si mutadawiciin ah oo isxilqaana uga yimid gobolo kala duwan ilaa boosaaso qardo gaalkacyo iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga ay igu doortaan ma fasmati garayn ma kharash garayn umaanan yeeran laakiin si mutadawacnimaada u yimaadeen sidaasayna kursigii mar labaad ay igu soo doorteen si fuul ah oo 100% ah marka taas horta taas weeye tan kale waan kaa leeyahay su-aashaada haddaan usoo noqdo waan tartamayaa ahaa waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay mar labaad isoo dooranayaanna waan ku qanacsanahay waan filayaa waana jeclahay waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray puntland uga dhacday intaan ka warhayo puntland si feeray uga dhacday waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso maxamuud kulolihi waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa aniga musharaxan ah xag ilaahay ka qoranta haddii ilaahay u qadarana waa helaya haddii heeda aysan ahaynna kiisa aysan ahaynna ma helaya laakiin kursi ilaaliskaasaan ku jira oo 3 karbuuno 3 qaadka aan ku hayo
doorashadii 2012 waxaa soo xulayay 135 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada. doorashadan waxay u muuqataa in mas'uuliyaddaas la ballaariyay waxaana odayaasha la soo xulaya ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi. waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay u codeeyaan 101 ergo. xildhibaan cabdiweli maxamed qanyare waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhammaanayo. waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado. adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo markasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaa kambaniya baxsay ama dowladaha baxsay waana marka iyagaas laga raayo ama qoomkii laga raayaa markasta waxay qolyaha raayay ku naqdiyaan in doorashadaas aysan xalaal ahayn. afrikana kuma sii jirto, soomaaliyana kuma sii jirto. soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay tiraa war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay waxay ku soo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaksiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas waa la yidhaah. laakiin aniga ka shaksi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan. marka eedahaasoo dhan laga yimaado adigu ma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday tan soo socotana xaq ku dhici doonto? for example aniga intaan ogahay waxaan kasoo galaa galmudug aan kasoo galaa. galmudug inta badi dadka kasoo galay qaylo badan ma qabin laakiin kuraas oogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray. laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa sheegi kara electoralkii vote garaynaysay iyo shaksiyaadkii tartamaya sheegi kara. aniga waxba kama sheegi kara laakiin aniga kursiga aniga aan for example kusoo baxay wax musuq maasuqa kama dhicin landslide aan ku raayay. sahre maxamed axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor. sahre maxamed axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka Somali Women Development Center. waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka. marka horeysa anigu waxaan noqday waa kala qaybinay saddex xamalaan la isku kala qoray. marka anigu waxaan ahay qofka joogaha u ahaa ama gudoomiyaha u ahaa galmudug dan kaaga sheekay cilada waaweyn oo jiro waxay ahaayeen doorasho ma jirin waxaa jirtay wax la yiraahdo adiga qofka in la kala garaysto oo la kala doorto dad marka diyaar ahaayeen oo diyaar u ahaa lacagtii haystay ergadii haystay odagii haystay dad waxay ahaayeen tartanka iska galaya oo ilaahay watay muxadarada ergadooda xataa loo jeedo inay keensadaan. marka taasi orta difference weyn ay ahayd. haddana cadaalad darrada dhacday waxay ahayd dadka markaas awood isbidaayo isla tartamaayo waxay ahaayeen waxaa lagu kala reebaya waqtiga xataa salaada isoo qof ku jiro in qofka la yiraahdo doorashadaada gal ay gasho qof muxadara meydka oo yaala doorashadaada gal la yiraahdo marka qaarkood inaan laga gaarin xataa in qofka qoraal ay qortay tiraahib ama hebel aan rabaa gacanta taaga laga hayay galabta qoraxday dhacdo waxyaalo badan waxaa dhacay aan macquul ahayn. kiisaska ugu badan ee dacwada la idin soo gudbiyey yay ka imanayeen maxay ahaayeen? kiisasku way kala sidaan sheego waaye 3 meel ay ka imaanayeen oo dhaqameed qol lagu soo xiray oo riin saxiix lama baahnaba sida iyo ku galeen ma aqaani way jirta asoo dacwoonayo waxay hotelkan joogaan leema ogol inaan ka baxo. waxa kale oo jira xildhibaan asoo taagan ergadana loo haysto muxaadarada ninka meel madaxda ka ku haysto